baan ahay ilaahay waan nabad geliyay adduun badanna kitaabka masiixiga ayaan ka hadlayay waxaanan inaga codsanayaa walaalayaal kitaabka xaq oo ilaahay leeyahay oo runta aana khalad ku jirin waa kitaabka masiixiga midka aawadeed baanu caawa aanu ku faraxsanahay walaalkay inuu yimid oo wax weydiiyay kitaabka su'aashiisa iyo aqoonta aan isu lahayn awal hore ayaanu ogeysiinayaa wuxuu yiri war inaad nooga keento sawirkaygana aad ii keento yaa la doonayaa sawirkaygina wakaa waxbarashadeydana kitaabka quduska si fiican baan u aqaanaa kitaabka quraankana si fiican baan u aqaanaa Soomaali badan oo intaqaanana way jirtaa oo nin Soomaaliyaan ah masiixi baan ahay kitaabka xaq oon ayiday oo ilaahay nuurkiisa igu dajiyay ayaan wax yaan ka doonayaa inaanu qaybsano walaalaha yagan wadada laga duway oo la yiri waxaad yeelaysaan kitaab kale qudus ma jiro kitaabka waa la rafacay wax la rafacayna ma jiraan laakiin annaga hadee humal baan la gashay wada aanu xaq ahayn ayaana lagu duway saan u dhanay Soomaali hadaanu nahay walaalayaal kitaabkaas inaanu ka qayb qaadano oo walaalaha yagaan aan ku haloonino oo nin walba meel aad joogtaba oo magaca asaga isku dadaalo sidoo ku himigelinayo walaalaha yaga baan doonayna anigu waxa la yiraahdaa Shaafici Ibrahim Farax ayaa la yiraahdaa anigu qabiilka ma shaqeeyay laakiin iimaan baan ka shaqeeyaa waxaana walaalahay inaan ku wacdiyo doonaya kitaabka quduska inaan wax baro oo ila bartaan in ogaadaan oo yan ayagana dadka la lumiyay oo wadada laga duway inay wadada ku soo duwaan baa loo doonayaa waxyaalo badan oo aan u baahanahay ayaa jira dadkiina waa dad waxa way la cadaadinhayo ragnimadoodiina la horjoogsanayo sidee wax iimaan u gashadaana laga horjoogsanayo lama la leeyahay hadaab baad galaysaa hadaabtu waa iimaankaada adiga lagu lugooyay weeyaan aqoon baan u leeyahay waxbarashada aqoon baan u leeyahay cilmiga mid kastaba inaad ila qaybsataan ayaan muctaad u ahay meel aad joogtaanba